بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد ولا لهيجي قالي سيدتهين حالتين عفمتكينا إن عفمت قبتنا رجينا إن شاء الله تعالى. جرى كان قد أوليسين واحد أوفيسيال ولا شيء من حيل إذا حرر عليه وحيدين لنا عاوة هذي هبين كوتاي هبين وناكسن هذي مالن كوتاي وناكسن وقت جيتا كو وناكسن كلية إن شاء الله تعالى. صور دواد ولا قالية كنا كذا نوع سبسكرايب لايك كومنت شير إن شاء الله تعالى. هذا أتحبت أنا كمتين وهذه لنا قام فرم كسود دواد إن شاء الله. سيدي إنه صعد إن شاء الله تعالى برنامج ديني أو وقت اللي جرني برشدة رقم كذا هي وحيابها برشدة كقبسن كره sida maxaan dhihi jiray wax walba oo ra'ligaada aad kasoo diiban kartid adana daawad waa kasoo diiban kartaa ra'ligaada doo ilaahay subxaana tacaala qadaro ra'ligaada kasoo diiba insha allahu tacaala waalihii qaaliga soo dhawaada insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idin leeyahay soo dhawaada anigoo maanta idin soo laabtay iyo idinkoo cusub iyo anigoo cusub iyo video cusub insha allahu tacaala qiso qurux badan idin wada caawo maasha allah tabaarakallah qalbigaagana insha allahu tacaala haddii qofka iska caawin jiraan aad tihid qalbiga kaa dhaawiciisa oo micnaha qalbigaada kuu danqanaaya haddii aad tahayna qof iska adagna koleybo hee adigihee waa sidii markaas lagaga bartay qalbigaaga adkaa insha allahu tacaala qalbiga ilaahay qalbi adkeen allah nooga dhiga insha allah hadduu ilaahay yidhaah walaalahayga qaaliga ah qisasidtanay ku bilaabatay insha allahu tacaala waxaa dhacdayaa la yiri magaalo ayaa waxaa ka dhacdayaa la yiri gabar oo maxaa la dhihi jiray baabuur ayay soo raacday basaska la raacay soo raacday ayaa la dhahay magaalada ay taa kuleybo ma hirta adiga u qaada insha allahu tacaala afrika hanay noqoleed haddii Europe ay noqoto meel walba ay noqoto qisas sida u dhacday aan ku sheegaya magaalada ka dhacday insha Allah tacaala gabadhu waxay soo raacday alay baabuurka markay soo raacday baabuurka weynta oo baska ay soo raacday gabadhii maasha Allah tabarakallah aad badan way saarnaayeen baski marka insha Allah qofka bini aadanka isdiisaba uu isku ilooso dhow yahay wax walba iska hilmaamaa qalbiga bini aadanka insha Allah wax walba hilmaamaya qof uu hilmaamayna ma jirto marka waxa dhacday la dhahay gabadhii inay telefoonkeeda guriga kusoo ilowday guriga telefoonkeeda kusoo ilowday allah baawarka ayay soo raacay maasha allah tabaarakallah dad horna way u saarnaayeen marka maasha allah markii meeshii cabaar baawarka uu socday allah ay gabadhii wixii towday shandadeeda inta ay furtay shandadeeda ama boorsada u kasisiin garabka la gashto ayay furtay la dhahay wixii ka weysay jawaalkeedii ugu jiray jawaalka qaaliga uu ahaa jawaalada ee maxaa la dhihi jiray maasha allah tabahada casriga ah ee la xiiseynayo ayuu ahaa la dhahay sida u dhacday idin sheego waa insha Allah tacaala aniga qof joogka ahay ama maxaa la dhihi jiray qof markaas ogaal ahay ayaa ila soo wadaagay qisada marka sida ay soo gudbina anigana insha Allah tacaala qof walba damiir danqada leh uu yaani shaqada uu ku danqanaya insha Allah qofka aan lahayn waa sidoo hore aan u sheegay marka waxa la dhahay gabadhii markay soo raacday baaburkii jawaalkeedii ayaa ka dhumay iyadoo waxay u malaysay baaburka jawaalka inuu ka dhumay laakiin jawaalka ayaan ka hor dhicin jawaalka ma uusan ka dhumin laakiin sida iyadoo u qaadatay waaye qofka bini aadanka ah si walba qalbigiisa wuu noqon karaa habaar markuu baaburkii socday shandadeedii furtay jawaal ma lahan gacmihiisa markay fiiris jawaalada ku jiro ayada jawaal ma haysato markii gacanta dhawey maseeray ma ogtahay waxay rabtaa jawaal dhac kala sii rabtaa jawaal ma haysato gabadhii markaas waxay samaysay meeshii ku barooratay la dhahay marka baaburkii meeshii loogu talagalay ayuu gaaray baaburka waa laga dhagtay way qaylisay qofkii waxay dhahday alla jawaalkeygii meeshii boosteedada aheeday ee dadkii ku dhagteen dadkii dhan way kusoo kala carareen gabadhii intaysan bixin ee qof walba uusan danaysanin barkadka waxaa ku dhex jiray wiil maasha Allah tabaarakallah oo calool danqanaysa ku taalo ama qalbi danqanayo ku taalo calooshii waxaa la jilacday wiilkii markaasoo dhankeedii soo aaday iyadoo gabadhii baroorinaysa dhees jawaalkeyga maqan dhehayso ayaa maxaa la dhihi jiray meeshii wiilkii uu imaaday markuu dhinaceeda soo aaday wiilkii waxay aragtay jawaalkeeda mid la eg oo jawaalkeeda yacni mid camal ah ama maxaa la dhihi jiray shabahaan ayay aragtay la dhahay markaasay afka furata way sii darsatay gabadha waxay tiri alla jawaalkeygii gabadhii afka isfuratay la dhahay wiilkii wuu naxay wuxuu islahay asay gabadhan caawi micnaha jawaalkaaga oga dir haddii uu jawaalkii ka maqan yahay bas markay saas ay dhahday ee kusoo booday wiilkii kalarka ay qabatay ama kuleetiga sida u kasisiin ay ka qabatay wiilkii markii ay ka qabatay kalarka ama kuleetiga ahaa ay ka qabatay wiilkii markaas yaabay markaas haddana indhaha dharbaax ugu shubtay wiilkii indhihiisaas ka noqdaana indhihii meeshii dhan shantii farood xooggii qofkaan inuu waxeeda ka maqeen qof wax ka maqeen waxaa la dhahay hal maqay ka maqan tahay haanuu gacanta geliyaa la dhahay marka subxaan allah baba markay ugu shubtay la dhahay wiilkii uu yaabay
markaas wuxuu war subba maxaa igu haysataa markaas si darsatay ay tir markaas uma jiran soo yaacday markay soo yaaceen wiilkii lagu soo shamugsanay qofkii gadaal ka tumi karo qofkii meel walba ku dhufan karo wiilkii waxbaa inta la hubsanaa lagu boobsiiyey jawaalkani looga qaaday gabadhii subxaan allah booliisaa meeshii imaaday booliiska markuu meesha imaaday gabadhii wiilkii waxaa la dhahay meel loola fadhiisiyey gabadhiyaa la wareertay waxay dhahay jawaalkeyga iga maqan waa kana jawaalkeyga ninkaana iga qaatay saas meeha u dhahaa wadhiisoo dhahay booliiskii haddana wiilkii u tagay wiilkii aad la wareertay wuxuu dhahay aniga jawaalkeyga markaasuu ninkii booliiska uu soo noqday markuu wiilka soo arkay wareersigiisi gabadhana ee wareersigeeda u arkay ayuu kusoo noqday islaantii uu kusoo noqday meesha fadhisa wuxuu yiri jawaalkaada bal qabsa jawaalkan raqamkaaga korka ma haystid ahaa raqamkaaga dir oo dhahay jawaalkan ku dir raqamkaaga subxaan allah jawaalkii dirtay gabadhii markii ay dirtay jawaalkii gabadheeda guriga jirtay gabadha ka qabatay tag salaamu calaykum calaykum salaam maama jawaalka guriga uga tagtay yaa wiilkii marka wuxuu la fajacay oo micnaha la amarkaawsan yahay dhibaatada loo geystay sida loo ceebeystay loo fadeexeeyey meeshii lagu fadeexeeyey iyo meeshii yacni ay ku dhammaatay arrintii uu la yaaban yahay naagtii way yaabtay way garirtay iyada dhan waxay noqotay isla weynaatay iyada dhan yani subxaan allah يعني ذنبي مركي أذيك وصل نقض أتي أذو لبنيها مقته ذنبي يا قبل وصل نقض سبحان الله مركز حيت ترير على قلنا بحنايا الله يقرأ على النقض ويلك هاي يقرأ على النقض أنت هاي قبوها أنت هاي قبوها ويلكي ويا يعني دل وسي إلى موتي على شيء يعني وحو يونايكي وسميناي وحمانت اللي بدل ويلكي لا يا وحو أصله وناجا أذو جيسر تيسال لو قالي حتى إنه وحي قفكي أي جورج قد حشي markay dirta telefoonkeeda guriga jawaalkiisa uu yahay telefoonkeygii oo aniga aan la haya oo gacanteeda uu ku jiro wiilkii intaas dhan lagu weynaatay marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ama ummadda dhan yani maxaa la dhihi jiray muslimiinta oo dhan hubsiina waxaa la dhahay xalaala siistaa qofku waxaa oran inuu wax hubsado intaad wax hubsanina iska hordhacid waa qalad maxaa la dhihi jiray qofka bini'aadamkeena waxaa fiicsiisa inuu wax walba hubsado qofku walaalka in waxaan ahayn looma qaado waxaa adi qaadanayna qofka walaalka looma qaado ayay dhahaan Soomaalida ama ummadda dhan basay dhahaan yani waxa adi micnaha qaadan karin qofka walaalka looma qaado aydana kolleybo qof waxay aheeday way fududaatay markii waxaas aa weysad waxaa fiican ama gurigaada jawaal aa ka dhex weysad islamarkaaseeti ama shay kaa maqnaado intii aa fikirtid aa fadhiisatid yani maskaxdaada dajisid istiraahid waxaan sidee ku maqnaadeen ama wayba maqnaadeene xaggee ka raadisaa inaa isdhahid laakiin ma ahan inaan qof maxaa la dhihi jiray jawaalku waa isku okaan karaa jawaaladu waa isku ogyihiin telefoonada kulli waa isku ogyihiin maxaa la dhihi jiray ina hore karuurid ma aha ama markaas waa dirsaneen waxaa leedahay walaalow miya walaalay miya ii dir telefoonkeyga iga maqan waatan asxaabtana kula saarneeday baawarka badan oo Soomaaliyeed ayaa saarnaya marka waxaa lagaga baahnay inaa markaasiti aad samaysid aad dirtid telefoonkaagii maadaama raqamkaada kor aa ka haysidba inaa aad dirtid maahayna ma ahaynin inaa wiilkaa walaalkaa ama fadeexaysid ama dhibaato waaweyn aa gaarsiisid marka wayba dhacdayow hadda qofka kale ku dhici laheed waxaan leeyahay ka fooldignaaw amba maxaa la dhihi jiray ka fiirso wax intaadan falin ayaa laga fiirsadaa ha la yiri adduunku wuu dhib badan yahay qofka marka wax ka maqnaadana fikradiisa aad iyo aad ayay u badan tahay ayaa la dhaha waxyaaba badan oo ka fikiraa qofka marka waxaa fiican inuu xubsado antani maanta intaasay noogu ekeeday maasha allah tabaaraka allah intaan idinla soo socodsiiyey wuuna inoo sii soconaya barnaamijkeena insha allahu tacaala waxyaabaha quruxda badan aan soo gelinayna insha allahu tacaala daawada hadduu ku cajibiyo fikradaada waa kasoo dhiibi kartaa haddii uu ku cajibiyo labada kalba waa kasoo dhiibi kartaa fikradaada haddaa kanaalka noogu cusubtaa nagu soo beer haddaa hayol noola joogto asxaabteena kamid tihiin waxaan idin leenahay hana dhaafina insha allahu tacaala jananka waa janankiina gurigu waa gurigiina soo dhawaada walaalahayga qaaliga ah gacmo furan weji furan kusoo dhawaada haddana waxaa idinka sii tagayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu